waxaa jiro qof Soomaali ah adiga kula tartamayo oo ka soo horjeeda aqoon uma lihi wiilka runtii sida muuqata isagana wuxuu leeyahay bulshadan wax u qabanaya adigana dadku laakiin afkaar iyo fakar kala duwanaan baa lagu tartami karaa wax kala ma aha runtii aniga halka qof aan endorse gareeyay aan taageeray waa ka watar group yar oo runtii oo taariikhdooda la wada yaqaano yacni runtii kala jiid bulshadii iyo xumaan iyo cuqdad waday sayidna Maxamed Xasan wadada soo dhicinay aadaankii barnaamijka aan sameeyay dhowr sano ka hor 26 qof runtii hooyooyin ilma laga qaatay baan u soo celinay iskoolada waa Islamic schools na dhisa Soomaaliya leeyihiin waa groupkii laftigoodiina watay gabar yar cadaana kali la dhaho 2018 kana runtii la shaqeynay gabar la dhaho Bernardine Kennedy Kent su'aasha waxa ay mataqaanaa dan ina la is abaabula bulsho ahaan lagana shaqeeyo in iskoolada muslimiin la dhiso laakiin si annagii ina isku mashquulno oo ay iyo nacnac iyo qashin ina tuuladii I think waa nasiib daro runtii Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waan oo wanaagsan akhyaarta meel walba naga daawanaysaan halkani waa Shaaciye TV oo idinkaga imaanaya magaalada Columbus Ohio waxaa halkan marti inoogu ah xildhibaan Ismaaciil Maxamed oo laga soo doorto deegaanka saddexaad kana mid ah aqalka wakiilada ee gobolkan Ohio xildhibaanka haatan wuxuu u tartamayaa mar kale in la soo doorto Shaaciye TV ayuu marti ku yahay soo dhawow xildhibaan marka aad baan ka mahad celinaya walaalkay Shaaciye runtii muddo isma arkin mashquul daraadeed marka ka mahad celinaya runtii Ismaaciil waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan ku weydiiyo hal su'aal oo ah sidee ayaad u aragtaa dib u doorashadaadii ololaha hadda aad ku jirto ما شاء الله مركا أجين مر لبعض وكان مهد علنيا برشاد كوجو حرن رنتي أدبا وسلامية رنتي الحمد لله سفع عم بوارنا هدير سوى السعودية ولا ليه الدور شذا بلوذي مركا وياها نقدر رنتي برشاد ما لها الليني رنتي دت كنا وحقبت يديني وحنو هرجلي رنتي بانكها الليني كامبين كواس كذا جاهي رنتي ديمقراطي نمدن وقيب بكتها هنا ترتموا الأردو لكن رنتي أدبا رنتي وحنديرنا هي رنتي برشادنا رنتي ولا وذاقنا وحسوق من النبا إن رجدا إن دب لجو دورته انت اللي اكتها اسماعيل ما يرتشي رنتي ادوي في عنته ما شاء الله رنتي بقولك وبقول ولا بدن كما قبل رنتي انغ بلشده وانا لا سocota dadku aan taageersan yihiin marka aad bay laakiin dadkiina la hadalna moor oo dadkii waa u baahanahay qodobkaas runtii aad baa u sii xoojinayna aad iyo aad ismaaciil hadaan kula kaftamo sanadkii hore markaad carareysay oo markaa ugu horeysay inay ahayd daal badan ayaa ka muuqday xitaa ismaaciil jir ahaan waa isbedeshay laakiin sanadkan qof nasiiyo ku jiro oo aan xil maartay kor ka saarneen oo dhibaato badan aan dareemayna ayaad u egtahay maxaa isbedelay runtii wax isbedelay ma jiraan runtii shaqada waa wadnaa laakiin runtii qofka shaqadii uu la qabsanaya qofka shaqada waa run mas'uuliyadda siyaasadda wax fudud ma aha aniguna runtii taariikh dheer baa soo maray saa ula socotiin wadada runtii aan jeexay 2018 aan bilownay runtii 2022 aan ku soo baxnay ma sha Allah marka wadadaas aan jeexnay wada fudud ma ahayn runtii halgan buu ahaa daal badan waa yahay shaqada loo yirimada aan ku hayana runtii waa dareemi kartaa marka daalkii waa iska jooga laakiin waa la qabsanaysaa bay la tahay shaqadu Ismaaciil ma isku aragtaa in aad tahay qof derbi la jibin waayay jabiyay oo haatan keenay in Soomaali badan ay tartamaan ما شاء الله رنتي ساعد وتحيي رنتي تاريخ وين بقارني فرحنا ورنتي سببت أي كنت هاي قبل كأوهايو الصومالية أي يكونوا لا صدق سنة كبدن ورجعت بقفر دي متشرو قفحت هال يقعني حتى اللي بانكيسا مثل ماشي وكونوا ليا مثل قبل كوايرة رنتي يعني مجال أول 20 سنة ودقنا هاي أنا وحتى رنتي يعني ولا سعودي سياسة سجود ما هيكون بدي أحشرين مركب واللوبة هنا دربي رنتي أنا شو مني أرتيني ودي فرتي هدير waxa umalayna maal dawada adaab dhaxayba ilaa 8 qof oo orday Soomaaliya oo kala duwan boosasa oo wala wax loo baahan yahay runtii in la tartamo lagu kala fakar doonaado wax ayba kuma jirto walaakiin wada aan sheexnay waa runtii aadna ugu faraxsanahay runtii Ismaaciil maadaama aad soo hadal qaaday in 8 ruux ay tartamayaan waxaa jiro qof Soomaali ah adiga kula tartamayo oo ka soo horjeeda oo isku xisbi aad tihiin qofkaasi inuu kula tartamo sidee u aragtaa runtii waa wax caadiya runtii dimuqraadnimada dalkan waa in la tartamo waa wax caadiya oo waxaan soo dhaweynayno democracy waaye waan ku amaanayaa runtii wax ayba kuma jirto dadkiina tartamo dadku laakiin afkaar iyo fakar kala duwanaan baa lagu tartami karaa wax kala ma aha laakiin runtii waa soo dhaweynaya runtii bulshadana fursad bay u haystaan labada qof inay arkaan sida muuqata isagana wuxuu leeyahay bulshadan wax u qabanaya adigana waxaad taagan tahay bulshada ayaan wax u qabanaya maadaama isku wada aad ku wada socotaan wiligiin ma wada kulanteen ma wada hadasheen maya runtii aqoon uma lihi wiilka runtii maxaa dhahay korba iska naqaana laakiin dadku tartanka weligeed waa iska jira bini'aadankuna han waa lahaan karaa laakiin Soomaalidu anagu dhaqan horta waa leenahay Soomaalidu anagu oo qof haduu mar wax noqdo inay dadku soo istaagaan ay yani qof kasta uu dhahayo waxa rabaa inuu noqdo oo isku daygaas horta iyo mataqaana dadku ay xoogaa mictamayaan runtii waa wax nasiib darro ah waa wax dalkeena ku soo burburay runtii
marka anigu waa ammaanayaa runtii orodka I think in la tartamo waa it's democracy laakiinse waxaan xooga saar lahaa runtii dadku inay xooga saaraan deegaanada kala duwan qofkana inuu afkaar mise laba xisbi kala duwan ugu tartamo haddii la tartamayo laakiin dadka Soomaalida inay isku mashquulaan la isxaq xigto runtii wax dan noogu jirta badan ma jirta anaga Ismaaciil ma wanaagsanaan lahayd inaad hesho qof Soomaali ah oo garab kuu noqda oo kursi kale intuu u soo cararo oo aad taageertid oo sabab kula soo maartay guuleysta kursiga kula soo fadhiista laba ruux saddex ruux oo Soomaali aqalka wakiilada ay ku soo muuqdaan aad iyo aad runtii hadda sawir socodka aniga Muniira ku fadhina ma sha Allah gabar walaashii runtii aad iyo aad wax badan qabatay oo ku amaanaya hadda runtii dhalinyaro kala wajin hadda ordaya wali walaashii si khaasatan wax siya Kawthar runtii aniga halka qof aan endorse gareeyay aan taageeray waa Kawthar dad kale Soomaaliyeed wajiyaan ordayaan marka ma sha Allah kullina Ilaahay u barakeeyo in la tartamo orta oo la isku dayo wax wanaagsan Minnesota sawir socotay dhowr sano ka hor bay bilaabeen ayaguna ololihii siyaasadda waxbaar bay naga horeeyeen bilowgiina runtii waxa iska jiray jahwareer badan wala dareemi karaa in dadku qabyaalad isku riixaan ay yaani cuqdad iyo cadifad iyo wixii lagu iska yaqaanay Soomaaliya isku riixaan wax la yaab ma aha kadibna siyaasadooda way degtay runtii hadda waxay noqotay siyaasad nadiif ah qof Soomaaliya qof kale kuma dhago isjiijid iyo dulinimo iyo laguma arko wala nadiif iyo wixii siyaasadii ay fahmeen siyaasadii baa saldhig yeelatay rasmi ana marka uu hayo shacabka Soomaalida ah ee ku nool gobolkan Ohio ma u egyihiin dad fahmay siyaasadda mise wali wax kale ayaa ku qufula runtii dadka majority runtii waa dad Soomaali wanaagsan runtii shaqaysta hooyooyin abooyin oo ku amaanaya runtii laakiin dadku waxa dad yar baa jira group yar runtii oo xumaan wada runtii wax la qarnay ma runtii isku sheego way fiican tahay group yar oo runtii oo taariikhdooda la wada yaqaano yaani runtii kala jiid bulshadii iyo xumaan iyo cuqdad waday bulshadina runtii jahwareer galaya dadka bulshada runtii loo sheego way tahay runtii insha Allah sababta ay ku tahay dadkii bay kala fogoon ku abuuraysaa dad isqaba dad walaalo ah bay xumaan ku dhalinaysaa marka dadkaas runtii in loo sheego bulshada waa run dad oo runtii iga soo horjeeday wax kale ma ahayn qabyaalad iyo xumaan runtii waday oo sanadkii 2018 kii ugu horeeyayna runtii yaani iga soo horjeeday aniga kadibna 2022 runtii ay naga soo horjeeday oo gabar yar cadaan watay marka runtii in dadkaas oo la shaaciyo la ogaado xumaanta iyo qabyaaladda wadalkeeni wax soo burburiyay oo wadankeeni soo burburiyay waaye waxa horta inaan ka tagno muhiim laakiin sida aan social media aan ku arkeyno oo bulshada xooraaminta aan ka maqalno waxa waaye in xitaa adiga ay kugu eedeynayaan in kala geyn bulshadeed wata inaad tahay qof noocaasi ku dhaqmaya maxaa isku difaacaysaa runtii aniga waxa isku difaaci lahaa runtii dadka ma kala geeyo runtii aniga qof iska aamusan baa horta aniga hadalkayga inaan dadka la hadlo waa iska yartahay baa saa wala socotid waxaan u maleynayaa interview maran hadlo waxa ugu dambeysay hadda dhowr bilood waxaan maleynayaa maybe ilaa 7 bilood bilood maleynayaa xafladaha iyo kulamada waan ka hadlaa runtii bulshadana waa ku dhex jira marka eventiyada iyo kulamada iyo laakiin qof yaani social media kana dhahmay anigu ma hadlo mar dhifo oo muhiima baan yaani afka furtaayo hadlaa inta kale laakiin waa dhowraa runtii marka aad baa isaga nadiifiyaa runtii xumaanta isjiidka aniga ma jiraan dadka ku eedeynaya qof kula soo xiriiray xafiiskaaga la soo xiriiray raba inuu kula fadhiisto hadalladaasina kaala hor yimaado ku weydiiyo ma jira ilaa hadda runtii way jiraan dhalinyar badan way jiraan soo xiriir la fariistay culimo jiraan la kulanay runtii ilaa muddo 4 jeer ka badan culimada siika ururka ah ayaa ku amaanaya runtii bulshada ku dhex jirnaa walaalayaal dadkan waa muhiim in loo shaaciyo bulshada inay ku dhex jirno naga warhayaan group yar baa jira laakiin oo walaalayaal qabyaalada iyo xumaantii wada bulshadiina runtii sababta ay ku tahay propaganda iska socota ay bumbuunanayaan laakiin bulshada ku dhex jirnaa runtii culimadii waa la fariisanaa maalin dhaweyd loo bari korba ilaa 6 culimo la fadhiyay la sheekaysanayay marka runtii dhinac kasta bulshada waa ku dhex jirnaa runtii laakiin sababta ay ku tahay mas'uuliyadda isaaran baa badan kaliya baa magaalada lawyer-ka ah kaliya baa magaalada xildhibaanka ah ka sokow Muniira xildhibaanad Muniira oo deegaan kale ayadana degan mas'uuliyadda marka aad u badatay marka taas daraadeed baa runtii cududaar bulshadii qof kasta soo telefoonka ma qaban karo qof kasta ma caawin karo baahidii baa iska badatay runtii fu hal mas'uuliyad la saaro taas marka cududaar u sheegan lahaa laakiin runtii dad badan waa soo xiriireen culimo iyo dhalinyaro iyo waxgarad ayaga ma la fariisanay runtii aad u weyn Ismaaciil adoon xildhibaan noqonin sidoo kale lawyer noqonin waxaan ogahay in bulshada aad u shaqeyn jirtay shaqadaadii markaan ka soo bilaabo markaasi waxyaabaha ugu waaweynaad bulshada u qaban jirtay maxay ahaayeen ma sha Allah kama hadalnay walaal soo runtii ani magaaladan muddo hadda 20 sano deganaysa wala socotid runtii markaan dib u fiiriyo waqtigii ugu horeeyay aan maybe active noqday politically bulshada dhexgal waxaan dhihi lahaa 2011 kii meelahaas bay ahayd xaladii abaaraha runtii guddiga abaaraha iyo dhalinyarada kala shaqeynayay meelahaas baan ku soo bilaabay bulshada dhexgalka
kadibna waxbarasha isaga jiray majority waqtigiisa u badnaa laakiin abaarihii iyo walaal afuri iyo barnaamijyadaas runtii kooban ka ahaa dadkii kala shaqeynayay baa dhalinyarada ka mid ahaa waxaas baa runtii igu dhaliyay mostly horta cilmigan waxbarashada ah kadibna looyarnimadii igu xigsatay marka lawyer ayaa noqotay shaqada lawyernimada markaad tahay magaaladan ama gobol dhan qofka keliya oo Soomaali ah af Soomaaliga ku hadlaya intaasoo bulshada ku dhex jira dabcan waa dareemi karaa shaqo badan ayaad qabatay laakiin hal iyo labo shaqooyinka ugu waaweyn ee aad qabatay maxaa ka mid ah صح أدي أترنتي وشغل أبو بدن رنتي وشغل أبو قيمة بدن أن هيو والله مداس حل واي ماذا وانا تجاه حل كرنتي حل كنا مسؤولية ده واحد كومر رنتي سبيسيفيك وحيا ريال بأود ولا ذاعي هذا يعني رنتي لبدا كوفيد بحرتها كوفيد يو قيمة بدن والله ماذا تدك إيه ماذا وأحد بدن ما أنتي بقى فرت كنت قف أي ماذا حفيزكي ولا سعودين بهيو يسوي بدين shaqada majority waxaan u qabtaa looyarnimada yani koofiyadii aan qabaa sababta ay ku tahay xildhibaannimadu wax badan baan aqriyaa xildhibaanku awoodiisa waa la cadidaa marka waxyaalaha badan ma samayn kartid looyarku laakiin waa runtii sharaf iyo karaamo u awood badan leh wax qabadkaaga marka kaas baan runtii u badanahay waxyaalayaasha ugu badan haddaan taabto aan bulshada kala shaqayno ugu baahi badan wax kamid guryaha xaaladda ugu badan soo laabata guryaha kamid ka warta dadka guryaha lagu dhibaateeyay baahidina wali waa badan tahay dareemi guryaha marka aad leedahay guryaha noocee ma low income ka section 8 ka mise kuwa kirada caadiga ah waa guryaha dadka ay degan yihiin kirada caadiga bay u badan yihiin waa taleefanada ugu badan baa dhihi lahaa anaga helno constituent services ka qabano ugu balaaran kaas waaye dhinaca looyarnimada iyo dhinaca xildhibaanimada labadaba waa dadka guryaha kirada degan oo ka yani complaint ka qaba maintenance la'aanteed maintenance guriga sameeska hagaajinta guriga oo dhib ka qabo kaasa marka ugu badan horta waa hadallada la soo gaara iyo codsiga baahidu waa badan tahay waa run kiiskii ugu yaabka badnaa ee uguna culusa ee aad ka gashay guryahaasi ee dhanka maintenance-ka maxaa ka mid ahaa guryaha ugu badan xaaladaha ugu darnaa waxay ahayn dhowr qof runtii oo xaafado kala duwan ahaa oo tusaale kale biyaha kulul u shaqaynayn maamo oo 6 bilood 8 bilood ka badan runtii biyo kulul haysan dad oo AC ka go'naa for 9 months qaar oo ka go'naa sanad ka badan runtii baahiyooyinka aad buu dareen dadka qaar marka aragto waa naxaysa qofka kiiska marka gashay ma ku guuleysatay waa ku guuleysan alxamdulillah dadkaas oo dhan runtii waa ka caawinay waan ku guuleysanay sababta ay ku tahay landlordku ku khaldan yahay waxyaalayaasha mas'uuliyadda waaweyn landlordkaas kale dadkana bulshada markaas runtii waa ku wacyigelinaa inaan ku dhaxno heatka hot waterka waxyaalayaasha la midka ah safetyga runtii mas'uuliyaddu waxay saaran tahay landlordka waxyaalayaasha kale laakiin qofka tenantay saaran tahay okay ka waran kiisaska ticketka la isa siiyo oo la siiyo dadka Soomaalida waliba mararka qaar qaab cunsurnimo la isku siiyo mararka qaarna luqadii oo dadkii aysan isfahmaynin ama maartay qofkii kale ee Soomaaliga luqadii uusan garanaynin darteed dusha laga saaro eedii oo ticket la siiyo meeqa kiis oo kala la kulantay oo xalisay ma sha Allah runtii shaqada xafiiska horta wuxuu ugu badan yahay waa traffic tickets baahida ugu badan aniga ka shaqeeyo waa traffic tickets shilalka immigration oo baahida ayadana aad u balaaran tahay so tigidyadu waa wax ugu badan suubiyo adiga qiyaas ahaan week kasta maybe ilaa 25 case oo suubina week kasta marka waxyaalayaasha waxa waaye yani waqtiga badan ku baxo oo maxkamadda aanu joogo waxa way jirtaa runtii cunsurnimo iyo waxyaalaha ka tabayaan waxyaalayaasha kala shaqeeyay siriga runtii waxa kamid ah for example in dadka turjubaan lagu waco waxyaalayaasha ugu badan ku dhaco waxa waaye qof baa traffic citation loo istaajinaya asay luqadda ma yaqaan for example communication marka ma fiicna ma uu fahmi karo citation waxa lagu siinayo legally qofku waa inuu fahmi karo wixii uu saxiixi karo inuu fahmay ticketka waxaan baa lagu siiyay marka kaas oo kale waxyaalaha kala shaqeynay siriga waa inay police-ka wacaan language line telephone wacaan ay turjumaanimada ah waxyaalaha kale oo ka baxay ticketyada hadaan fiiriyo runtii waxa kamid ah xaaladaha dumarka ilmaha laga qaadanayo runtii baahida aad u balaaran ay tahay runtii saa loo socotiin ilaa runtii waxaan u maleynayaa 2023 hadaan fiiriyo last year dadku halkiisa laba kiis maqlaan oo social media gala gabadhii global mall oo kala tusaale ba runtii waan tirinay ilaa 26 qof maalin wada tirinay ba urur soo celinay maamoyina laakiin de markasta aniga qof social media imaanay oo nacnac dhahay ma yihi 26 qof runtii hooyooyin ilma laga qaatay baan u soo celinay oo gobolka oo haya kulli dadkaasna sababta ay ku soo celinay wax fudud waaye dadkuna hadii ogaadaan maybe inay ka taxadari karaan waxa waaye ilmaha marka la qaato process ba loo maraa children services ka xafiisyada ugu horeeya waa inay xiriir la leenahay oo alla fariisanay actually markaan la dood kulligeenba marka waxyaalaha kala shaqeynay waxa weeyna dhahno carruurta Soomaalida oo kala nala soo xiriira waxaan ku amaanayaa walaalkii waliba Cabdikhiir Soofir runtii asagana runtii barnaamij aad buu uga shaqeeyaa carruur soo celinta iyo xaaladahaas barnaamij qayb weyn laakiin Ismaaciil in 20 in ka badan oo kiis oo carruur la qaatay aad ka shaqeysay oo dibna u soo celisay carruurtii wax yar ma ahan in marka laga hadlayo carruur markay timaadana
waxaana jira dad badan kugu eedeynaya inaadan waxba qabanin oo marka la fiiriyana kiisaskaas intaasi la eg aad samaysay waxaaba la dhihi karaa waa shaqo u dhiganta 5 sano sidee kuugu suurta gashay in shaqadaasi aad qabato maasha Allah waa looyarnimada markaan ku celinayaa boqolkiiba boqol يعني سلطنة لوير لماذا بقول كيف بقول كقيمة بدل حلبان كقيمة بدل إني كان في حلبان كونغرس دروا هذا علمي كان وعلمي رنتي أديت قاريوا سببت أن مركز أول اليرد أن ولي وقل قاريو أدرنا دور اليرد أشرا ولكن جوري وسلام يا إلى اليرد عبد الرشيد رنتي اليرد هجر لوير ما هدر برتاجر صباحي وأنا أباهنا باهدا سببت أي كنت هي وشقة عادية القيمة أولى سببت أي كنت كونكشن كحرير كفضانية ميلها لقط الجريس مركا أنا لا بكون فيود باهستا مركا كاسب أي فضانية لكن ولا دتك وحوي وحي وجين أنا يقول مركز تان وأنا قبت أنت السوشيال ميديا سو استاجو من عن دهين وأقول أنا يقول حتى تيم كي يقول لي لا وحسا كمدا إذا هن إسماعيل وما لينك استقف بعونيسا مد حفص الجلي مد أرولا قاعدنيو مد تجد وانتلسي وانتي لقى صاريو maxaa social media soo gaari weeday oo yaani u faani weeday shafku garaaci weeday anigu dhaqankaas dhaqan leeyahay ma anigu niska afgaan baan ahay laakiin runtii magaaladan qofkiisa uu iimaan waa yaryahay hadii aad traffic ticket accident shill advice consent recommendation waxa marka aad u badan tahay baahidu laakiin runtii anigu waan kala qeybiyaa shaqada bulshada aan u hayo wixii campaign ah iyo legislation ee bulshada soo hordhiga laakiin shaqa bulshada aan u hayo inaan soo istaaga maanta oo nacnac oo faano dhaqankii wax ku jira maaha وهجاء إسماعيل حتى واحد رادين يسا إن ديب لجو صدرته إن وحنا الصومالي ده أنت بدن أي أد مرتي أول اللي سيهن نك وحبر شدا قبل كانوا هايو إن هبا أهاتو وحبر شدي أول لجو سلا يزيب كود إياه إن حتى صومالي ده أيسن هيسنين وحبر شو إسلامي ما حكى قرشيس أدي وسؤال هذا يعني وسؤال بدن رنتي براه بالشدة نصوصته أو شيء ذا أنا قاعد ما نجلس براه بالشدة بلكن سوى حواي ورنتي قدم مهمة dhowr jeerna waa runtii in speechyadeeda aan ka hadlay xaflada badan iyo kulamo badan waa iri in Islamic schools la dhisto school muslimiina bulshada hadeerna runtii walaashii xilibaan Munir oo ku amaanaya runtii hadeer ka shaqeynaysa barnaamij fundraising oo wado anaga ku taageersanahay runtii in school la muslimiina la dhiso sababta ay ku tahay xaaladan weligeed xaalad taagan bay noqonaysaa hal la ooyay mise hal la qayliyo wax laga bedeli karo meesha dalka ku dhex noolnahay awoodda dalka ku dhex noolnahay meesha uu leeyahay iyo bulshada aan represent gareyno inuu naga balaaran yahay qodobkaas waa qodob muhiim ah each xildhibaan aniga aan kamid ahay Munir ay kamid tahay kulligeedba 125,000 kun oo qof matalnaa Soomaalidana waxay ka yihiin maybe 5% Soomaaliya ka yihiin hadii loo barbar dhigo marka baahidiiba aad u badan mas'uuliyad culusna ay ku saaran tahay walaal dadkaas dhan si diiniin xitaa uga jawaabtid marka anaga Soomaalida waxa weeydi aqligay wali tuulada anagu Soomaaliya ah inaan dhahno wax anaga basarna waxaan basarna wal xildhibaanku qofka shacabku u dhihi kara shacabku dooqiisu leeyahay aniga waxta marka shacbaha wax raba ku hadli kare laakiin marka mas'uuliyad ku saaran tahay 125,000 ilaa 30,000 oo qof مثليسد مسؤولية بكل كاسرن وأنا لو لحسب تمية الدنيا أنا ما آخرنا ولا لحسب تمية مركز رنتي تاس وقضب كعدد بولشة أنتي فهمها مهم قضب كلا بعض وحوي إسلامي سكولز كا أو very مهم أجين ولا شيء منيرة أد بقومانية أدر ياسين أد بقومانية سجن رنتي أد برنامج كأول شقين سكوا ولا شيء منيرة رنتي وأنا للي حينا سببت أي كنت جنسية كستا Jewish أدلده Catholic every ethnicity وحي هيستان سكول خاص ودين تودا سببت أي كنت وحي إلى شنيان diintooda ayaga sababta ay ku tahay caruurtooda rabaan ka cabsanayaan waxyaalaha diintooda dibku waa inay timaado laakiin dadkeena nagu dhaqaale waa waxayna waan awoodnaa inta humaal care dheer lana waa loo jeedaa marka kaasna barnaamij runtii u baahan in xoog la saaro aniga hadda waa kala shaqeynaya walaashay Munira aad baan ugu amaanaya xildhibaanada runtii shaqada ay wado Ismaaciil dhaqaalaha in la helo aad bay u adag tahay haddana Soomaali badan oo dhaqaale leh ayaa gobolkan ku nool kaalinta ganacsatada Soomaaliyeed ay ka qaadan karaan in la helo iskuulaad islaami ah waa sidee وكال أدو بلارنتي سببت أي كنت هاي أنجو صومالي أهم أقالة وهنا رنتي يعني هدي له في العجة عندنا صومالي لما سكوا بكرو مركز أقالة وكفرنا كنت قاعد فخرنا ما هيسو أقالة وكفرنا في عن لكن مهم كوحوي إن هلنو إن نرتفهنو in public schools كا any public يهين meaning وحوي دي واحد دين أمس واحد يعني فكر لو ما فيرنيو قفكو هدي كلا قفك سووا حديه لها أنيجو كريستاك واحد لها أنيجو ما بربنا مسلمين بعد ما بربنا قف مسلمين شو يمادو كبر أما حجاب وقبتها أنه دينتي أنه كريستان بان هاي تن حجاب كوضة محيطها نقدر قاشي دي لاين أغلى قلمها مرك الدين إنه وحده ضل كان مريك مرك وحيلاش يقول لك بوحة كم ذا separation of church and state هتكون جوري مفهن سنة ودري مكرا وحيلاش الله يرمض كبرنا كم ذا إن لك هلا صار ضل كان دينته يدور الدنيا
waa laba wuxuu la kala fogay aad iyo aad dastuurka Mareykanka ugu qoran yahay waxa laga taxadaraya waxa waaye madaxweyne inuu yimaado uu dhaho anigu Kristaan ba ahay mise Muslim ba ahay diinta ilka xukumiya oo dad kale uu ku xadgudbayo marka waxyaalaha kala qeexay waay laakiin say private schools waxa rabtaa sameyn kartaa diinta rabtaa ku dhisi kartaa because of private marka qodobkaas waa qodob muhiim runtii ganacsiyaashan awood badan baa ku leenahay qayb weyn ka qaataan haddii ganacsato ay ku imaadaan ay ku yiraahdaan Ismaaciil lacagtaanan wadanaa private school oo islaamiga ayaan rabnaa inaan dhisno kaalintaadii ka qaado diyaar ma u tahay inaad ka qaadato boqolkiiba boqol runtii waxa hadda aan ku amaanayay walaash xildhibaanada Muniir waxaas waaye barnaamijka wado anna way iga codsatay inaan kala shaqeeyo ma kala shaqeeyaan wax kasta garab ugu noqon karo sababta ay ku tahay waa baahi markasta taagan bulshadaana markay bulshada ku soo badato Mareykan waa baahidii way sii badanaysaa sababta ay ku tahay bini'aadamku waa dareemi karaa waxyaalayaal iskuulada ka dhaca inay ka soo horjeedaan mise ay dhibsanayaan waa dareemi karaa runtii garab bay ku leeyihiin su'aasha waxaa mataqaanaa dan inaa la is abaabulo bulsho ahaan lagana shaqeeyo in iskoolada muslimiin la dhiso sababta ay ku tahay public schoolska wax laga qaban karaa iska kooban runtii marka in waa wax la sameyn karo waaye anna qayb waa ka noqon karna dhaqaalooyin weyn jiraan dawladda runtii lagu caawin karo runtii qayb lagu noqon karo sidoo kale Ismaaciil iskuulaadka waxaa lagu saleeyaa zip code sax ma ku qorshaysan tahay inaad la dagaalanto dagaal aad ka gasho si wiilka degan zip code-ka kale iyo midka degan zip code-ka kale ay midba qorshihiisa ku darsado iskuulku rabo inuu aado aad صح so schools ka Ohio waa run zip code ku xiran yihiin si u badan yihiin marka waxyaalayaasha runta anagu markasta especially caucus-keena Democrats ka ku dagaalana waxa waaye it doesn't matter what zip code aad tahay every single child should get quality education waa slogan ka ku dagaalana kamid ah cunug kasta meesha uu hadegnaado cunug haduu degan yahay zip code ka uu qaalisan Burlington oo kale very wealthy waaye laba bardhigo 4224 oo kale mise 4211 oo ku yaala London oo ugu dhaqaale yar cunuga inay ku xirnaato ma deegaanka cunug kasta waxbarasho inuu helo fursada marka waxyaalaashan markaas ku dagaalana waa runtii in public education ka dhaqaalihiisa oo lagu bixiyo waxyaalaasha xisbiga kala ku dagaalamayaan nagu soo jeedaan waxa way ayagu waxay rabaan private schools in xoog saaraan iskoolooyin public schools kana dhaqaalaha ku yareeyaan waxyaalaasha kale ay jarayaan waxa way property tax in hoos jiraan property tax wuxuu saameynayaa waxbarashada deegaanada sababta ay ku tahay schools-keena public-ka waxa lagu fangariyaa property tax ka soo baxa marka waxyaalaasha xisbigeena markaas ku dagaalama labada xisbi isku riixaan waxaas ka mid ah anagu waxa aaminsanaa cunug kasta waxbarasho buuxda inuu helo fiican kuma xirna dhaqaalihiisa cunuga ayagana waxay aaminsan yihiin deegaan kasta dhaqaale laga soo bixiyo bis lagu bixiyo marka zibkoor haduu ka dhaqaale badan yahay iskooladooda waa ka fiican yihiin kaasna waa xeelash cadaalad darada dhalinaya okay maxaa ku qorshaysan hadda adiga oo biilal ah oo wax qabad ah oo miiska ku saaran oo aad doonaysid inaad ka shaqeyso adiga runtii biilal badan baa hadda hayna ku fadhinaa ma sha Allah oo hadda runtii dhowr aan ku faraxsanaynay la ansixin doono insha Allah golaheena hadda ilaa sanadkan ka dhamaanayo waa uu socdaa insha Allah marka biilash waxa kamid runtii aan waliba dhowr jeer ka hadlay wuxuu minimum wage ka kor loo qaado bulshada hadda waxyaalaasha especially aad u saameeyay waxa dhaqaalihiiba aad u yar kharashkii baa kor u kacay groceries rent everything kor u aadaya but laakiin wages ka kor uma socdaan هاي هدر minimum wage كيسا $10.10 بوها هدر وحيرو كروكاي $10.40 something cents أمالانو ياي still add بوها سيا national average كتابو كوها سيا مركا وحيالاشا بدلين وحاوي بيلك عنيقا إيو Don TV's Girls representative كا وحاوي minimum wage increase كورنا ودلعنو كدينا $15 an hour كدينا 18 إلى 21 وقاري دون إن شاء الله كامد واي شرعي كلا وحاوي بيلاش اللايسنس إلى حريرة ونتي دور شربا ميلا بدن كفرنقي driver's license baahiyoyin ku daran waay runtii oo dadka especially soo gelitaanka ah dadka oo yani green card mise deganaansho rasmi haysanin gaari kuma wadi karaan gobolka Ohio license-gan gobolka go'aanka gaara BMV-ga saa ula socotiin hadeer dhowr jeer ku amaanaa gabadha saaxiibaday Senator Zainab runtii sharciga ka ansixisay Minnesota oo exactly sharciga la mid ah laakiin wuxuu ku tusayaa yani labada gobol in gobolkan lagu badan yahay dimuqraadiga sharcigii aan isku waqti geynay golaha haddana ilaa hadeer sharcigii uu fadhiyaa meesha sababta ay ku tahay Republican cunsuriya ba ku dhagan oo dhahaya qaxooti Afrikaan oo dulliyo laga keenay wadan kale maxaa u siinaa license nooga xiran bal ayagu waxay ka dagaalamayaan waxa waaye hadaa license siino kadibna green card sharciga siinaa marka waana wax ay qarsadaan runtii maaha wala socoteen Trump markuu madaxweyne ahaa in caadi ay xildhibaano badan xitaa fadhiyeen ay maqlayeen asagoo dhahaya markuu ka hadlayay Haiti iyo wadamada Afrikaanka shithole countries يعني وقضب أد وهذا قفل حنونتي وده ما سوحي يدل وايه محل نوكيني واي more immigrants from Scandinavia
iyo Norway marka runtii xisbigaas baa runtii dagaalkan ugu haya marka sharcigaas kale inuu meel gaaro way adag tahay sababta ay ku tahay cunsurinimada xisbigaas ka socda biilka kale aan rabay inaan falanqeeyo waxa way biil aan la haysto Darnell Brewer oo state representative from Cleveland sharcigaas wuxuu qabanayaa runtii school lunches in free lagu dariyo caruurta but also caruurta in other service helaan caruurta waxaa jira marar badan caruurta waxay wataan card oo lunch u isticmaalaan korkaas mar qofka ka dhamaado kul cunuga dhibaato ku noqonaysa cunugii bahdil bay cunugii ku tahay inuu cunto waayo marka waxa soo kale wax basic ah states badan way haystaan or free lunches or regardless waalidka dhaqaalihiisa income waalidkiisa kuma saleysna marka sharcigaas baa hadda asagana soo saarnay insha Allah dad badan waa helnay co-sponsors oo Republican markaas soo kale good possibility aysan inaan pass gareyno runtii sharciyada la xiriir trucking ka asaga mar wayna magacaabo license-yada trucking ka wax ugu badan anigu aan ku arka truckers ka ay ka calaalayaan waxa way point-yada u galaya waxa ugu badan telefoon soo dhawaas waaye daily waxa ay soo waa 20 taraglayaal oo state kala duwan degan xitaa oo dhahaya Pennsylvania ku qaatay ticket state kala ku qaatay dib baa ka qabaa ticketka point inay galaan so sharciga kan wuxuu hadda right now wadno and especially and Chinese fiican ku haysan aan saxino waxa waaye in loo ogolaado remedial driving course waxa dhaho waa class available laakiin u fududeyna iyaga oo yearly u qaadan karaan marka wuxuu ogolaanayaa sanadka samtaqaana inaad fasalkaas qaadatid 2 point kugu soo laabtaan ba hadda sanadkaas wax la qaadan karaa dhowrkiisana mar marka kaas wuu fududeynayaa sharci kale marka asagana runtii qiimo badan asagana ka shaqeynayna waxa kamid ah World Refugee Day dadka sis qaxooti baan nahay inaan ku faano labadii qof oo qaxooti ugu horeeyay oo golaha gala dadka badan runtii xildhibaanada especially caucus-ka kala runtii ma oga dadkan qaxootiga soo galitaanka يعني مركا إن أرتو كفانو إن قحوت المدينة إن كفانو إن immigrants نحنو إن also community كني ما نكفاني كرنو so one of the things that كني وحكم ذا World Refugee Day إن الأقوى صدق وجون 20th واي مالنتا إن official day نقطه كده نقول هنا يمان كران بولش بدن أيرونتي حلبنا ذا كل مكان إن قطة مالنا أي وده عالميا ظروفها يستعيجا قولها هنوك جوابيو قضب كأسينا وقضب مهم أسينا كده عالمينه قضب كأسينا وحوي international licensing أسينا عونو international licensing رنتي وفضليني هذا licensing ودم كلا وتا إني كوا عندك كان dalal badan baa jira runtii ay dad yimaadaan ayagoo licensegooda wata markay gaari ku wadaan gobolka Ohio mu aqoonsana tigid baa la siiyaa dad badan baa yimaadaan aniga oo Soomaali xitaa ahna ajnabi kala duwan marka dhowr sano waa la socday xaaladaas marka ishaan ku hayay markii la doortay inaan qodobkaas meel keenan asagana runtii insha Allah chance fiican baa haysanaa because state representative Dave Dobos oo Republican baa co-sponsor joint sponsor marka kaasoo kale very good chance haysanaa inaan ansixino insha Allah qodobka kale waxa way dadka ayrta mas'aawimaadada kala siinayo gobolka Ohio marka anagu saameyn kuma lehin marka TANF iyo food stamps iyo waxaas waa federal programs waay anagu waxa wada kula naama jiro laakiin waxyaalayaasha aan saameynta ku leenahay waxa way state benefits kala bixiyo dhaqaalooyin baa state ku bixiyo يعني legal aid baa jira dadka ku caawiyaan dhibaatooyinka victims dadka qandaraasi dhaqaalooyin baa jira ay ku bixiyaan gobolku dadka food stamps u dhigmada camal oo kale oo laga caawimaadiye kuwaas oo dhan mataqaana marka dib baa u fiirinay biilkaas muddo dheer ka shaqeynay hadeer hadafku wuxuu yahay biilkaas dadka soo gelitaanka inay fursad u heli karaan inay helaan hadeer onni waxa uu qalbi kara qof citizen mise green card holder marka waxa xoog saarnaa runtii inaan kaasna falanqeyno sharciga hadeer waa wadnaa ilaa runtii wuxuu noqonayaa sharciga ugu ballaaran maybe golaha la keeni doono sababta ay ku tahay wuxuu saameynayaa dhowr milyan oo qof oo runtii jooga Ohio oo runtii different ku jooga visa categories kala duwan oo runtii deganaansho rasmi haysanin inay heli karaan benefits-ka dadka ay ka mid yihiin T visa category kuwa la jira oo dadka loogu talagalay oo sex trafficking dadka lagu sameeyo qaar lagu sameeyo dadka oo victim oo dadka oo visa category victims jira oo domestic violence dumarka ku dhacay wax la midka iyagu benefit kuma qalmaan mar badan dadkaas oo kale ayagana benefit inaan siino marka runtii kuwaas waa biilashi bas la aan wado dhowr biilaash hadda maskaxdayda ku soo dhacayn waxa ka sii muhiimsan runtii dhaqaalayaasha soo dhicinay caucus ahaan anaga hadeer Frank County ilaa waxaan ahay 11 Democrats iyo hal Republican 47 million baa soo dhicinay lacag hadeer budgetka hadeer oo capital budgetka last year saa socotiin runtii lacag ayaan aad u badan ba NGO Soomaali waliba leeyihiin oo soo dhicinay ma sha Allah ayaan ku amaanaya walaalkay Mahdi Taakilo runtii walaashii Dorothy Hassan ayadana Our Helpers organization Soomaalida la shaqeeya ayagana Help and Hope walaalkay Burhaan oo qayb ka yahay runtii NGO badan baa ayaan la shaqeynaa qaar soo dhicinay ayagana marka wax badan baa noo suurtagalay ka baxsan biilasha runtii oo ahaa dhaqaale budgetka soo dhicinay lacagaha xitaa rentiga reliefka runtii aad soo laabta telefoonada ugu badan waxa waaye
kiradii lacagta way istaagtay goorma lacagtii la ansixinaya mar kale lacagaha siriga ay bixinayaan bay ahaayeen laakiinse fundingkii dhaqaalaha waxa siiyay state of Ohio marka ayagana runtii qayb baan kala shaqeynaa iyaguna waa ku mahadcelinaynaa xoog baana ku saarnaa dhaqaalahaas la badiyo wax u dagaalamayna waa runtii xisbigeena iyo sayidna maxamed cabdullahi xasan waaba ilaa qodobkaas sayidna maxamed cabdullahi xasan wadada soo dhicinay aadaankii barnaamijka aan sameynay dhowr sano ka hor marka runtii wax badan way jiraan wax qabadkii lama soo koobi karo laakiin intaas soo baxaya insha Allah okay sidoo kale Ismaaciil waxaa jiro Soomaalida waxa ay helaan dhaqaalo la xiriira caafimaadka transportationka home health care-da iyo day care-da waan ogahay Republicanka ma ogola in dadka noocaasi lacagtaasi la siiyo xisbigiina dadka hadda waxa laga yaabaa dhibaato badan inay ka qabaan helista barnaamijyadaasi maxaa ku qorshaysan ka Ismaaciil ahaan adiga sanad wax ka qabato صح بس واقف في عندي so home health care day care you know maqaaxyooyinka west business waaweyn waaye oo dadkeena Soomaalida ay ku taagan yihiin kasoo trucking you know trucking are more individual waaye but dadkan runtii wax ugu badan oo anaga kala dagaalana golaha wax ka mid ah oo xisbiga kale Republicanska ayagu waxay ka soo horjeedaan oo asaaskoodu yahay wix qandaraas ama wax caawimaad ah qof danyar in la siiyo iyagu fakar ahaan iyo ideology ahaan way ka soo horjeedaan waxyeelaasha labada xisbi ay ku salaysan yihiin ay basic foundation ay kula duwan yihiin marka bulshada ka inay fahmaato waa muhiim xisbina wuxuu u shaqeeyaa dadka danyarta danyarta waxa soo horgelay qof kasta midabkasta kalar kasta wuxuu raamsanaado oo laakiin dhaqaalihiisana yar yahay limit income uu yahay baahiyooyinkiisana ay badan yihiin that's why dimuqraadiga weligood ay ugu dagaallamaan inay canshuurta badiyaan high tax bay rabaan ayagu sababta ay ku tahay taxkii dhaqaalaha soo xaroonaya in programyo loogu bedeli rabaan dadka danyarta weli waxay rabaan taxka in laga qaado dadka richka hantida badan haysta oo marar badan a lot of loopholes bay haystaan iyo wadooyin badan ay uga leexan karaan waa doodaha runtii ama qashiin la falanqeeyo oo especially Congress because anagu again federal tax anaga awood kuma lihin laakiin xisbigaas markasta wuxuu ka soo horjeedaa danyarta in la caawiyo marka waxyaalayaasha anagu budgetkan ku dagaalana waxa kamid ah day care-da home health care-da maqaaxyooyinka small business ka especially minority owned business ka anaga minority aan ka mid nahay inaan dhaqaale iyo qandaraas la siiyo ayaguna markaas waxay dhahayaan waa la wada siman yahay waa cunsurnimo dadka in la kala saaro maxaa naga galay qofka kaas ku filnaado annaguna waxaan aaminsanahay dad madow aan nahay especially anaga Soomaalida si fiiri Soomaali baan nahay immigrant aan nahay muslimiin baan nahay caqabadooyin badan baan hortaagan marka anaga fursado badan kama faa'iideysan qof cadaan oo kale oo dalkan fourth generation maraya waa kala duwan nahay reality waxyaalaha dooda lagu falanqeeyay waa congressionally oo looga doodo especially affirmative action wala socota barnaamijkaas waa barnaamij runtii boqolaal sano laga dooday Mareykan affirmative action ka oo fakarka ah either ma gaarnay heer aan simanahay Mareykan completely nin naag dumar cadaan madow ma gaarnay meel aan simanahay oo completely program loo baahnayn caawimada ay dad qof kasta yani wuxuu rabaa dhaqaalaha dhinaca oo ma jirta cadaalad darooyin soo dhacay hore oo in la sax loo baahan yahay dadka danyarta in la caawiyo dadka mataqaana minority-ga ah baahiyooyin badan ay dhibaatooyin badan la kulmeen baa ku adkeeyay fursado badan ma helin marka waxyeelaasha runtii ay kula dagaalan xisbiga kale waxaas kamid ah marka dhaqaalaha dhikara badan waa kala shaqeeyay anigu runtii iyo maalkara badan waa kala shaqeeyay caawimaadyo badan haday ahaato mataqaana in minority owned contract ay helaan haday ahaato dhaqaalooyin lagu caawinayo renovations-ka runtii dhikara badan waa kala hadlay dhaqaalooyin badan baa jira ay state-ka ay ogolaadeen loogu talagalay renovations haday ahaato yana home health care mise dhikirada haday u baahan yihiin carruurta meel ay ku ciyaaraan haday tahay activities wax la midka ah so jira daycare ama home health care oo la xiray si qaldan lagu xiray oo kiiskiisa aad gashay oo aad ku guuleysatay sax way jiraan runtii ilaa runtii kuwaan wali waxay u badnaayeen inta aniga lawyer noqon inta xildhibaan noqoninba ka hor aad bay u badnaayeen inta hadda xildhibaan noqday anigu afar ba hadda ka warhaya anigu ganacsiyaal aan la shaqeeyaa oo runtii yani wax yar yar ahaayeen qaar yani maqaaxyooyin oo runtii yani dee waxyaal code violations oo minimalska ah lagu qabsaday aan la xiriirnay xaalad yar baa jirta runtii oo global mall special ka dhacday dhawaan oo runtii ilaa haddana wali xaaladda ku daba jirno ay kuwa code enforcement-ga yimaaday marka waxyaalo badan oo minor technicalities violations bay ku dhageen marka waa la hadalnay runtii fire chiefka ilaa haddana xiriir waa naga dhexeeyaa runtii hadafku waxa runtii inaan kala hadalnay dadka Soomaalida ah ganacsigooda inay dukaamadooda yararka special leeyihiin inay fursad u helaan banaanka inay dhigan karaan maxal alaabtooda sababta ay ku tahay qodobada ay ku dagaalamayeen waxay ahayd gudaha la geliyo dadkana dee waxay rabaan ganacsigooda inay ku faani karaan alaabtooda yararka ay banaanka dhigi karaan because tooradooda yaryariis waaye sida ku aragtiin bay Eastern iyo Players iyo Molosh waaweyn qodobkaasna qodob ay naga aqbaleen waa runtii hadeerna runtii mar labaad bay insha Allah inspection u imaan doonaan waxaa jira ganacsiyaal kala duwan oo home health care oo kala tusaale
oo ayagan lagu dhagay for again minor technicalities waxyaalaha fudud iska fudud oo u baahan runtii in xiriir la sameeyo la dhaho qofkan constituency waaye yani dhibkan buu tabayaa adiga xildhibaan ahaan mas'uuliyadda ku saaran bas waxa weeye inaad xiriirka la samaysid oo dhahdid qofkan dhibkan buu tabayaa wadada ugu fudud loo xallin karo waa maxay marka wuxuu ku fiican yahay saldanada xildhibaanimada orta dhaqsaar ugu jawaabayaa halka waxaan hadda bartay intaan ku fadhiyay waxa waaye email iyo telephone ba qof kasta la xiriirtid second kugu kula soo hadlayaa marka orta access kaas orta ku fududeynaya wuxuu ku fiican yahay kuwaas majority way noo soo jawaabeen waxaan baa looga baahan yahay qofka kadibna waa loo ogolaanaya marka wax iska fudud bay u badnaayeen Ismaaciil haddii aan caawa oo dhan halkaan fadhino oo aan dhahno Ismaaciil wax qabadkiisaan ka hadlaynaa caawana ma dhammayn karno taasi waa hubaal anigana waa ogahay bulshadana waa ogtahay adigana waa ogtahay si fiican ayaad wax u soo qabatay wax badanna waa qabatay laga bilaabo oon xildhibaan ahayn adoon lawyer ahayn ilaa iyo hadda shaqo badan ayaa qabataa maalin walbana qofkaasi waxaa tahay biisiga ah oo shaqada ku jira maalin walba la taagan maxkamad qof Soomaali ah oo wax u soo dhicinay ayaa tahay hadda dib u doorasho ayaad u taagan tahay maxaad ugu baaqi lahayd Soomaalida bulshada waxa uu baaqi lahaa runtii in la soo baxo la codeeyo walaalayaal runtii dadku waa tabi kara Soomaalida ah in yani jahwareer la geliyay waa dareemi kara dadka qaar oo yani baraha bulshada waliba buuq badan iyo isjijiid iyo qabyaalad badan runtii ka dhacaysay runtii wax cusub horta walaalayaal waxaan ma aha 2018 wax soo bilowday waaye qodobka horta waa muhiim in la fahmo 2018 ilaa hadeer group yar baa jira runtii oo qabyaalad iyo xumaan faafinay runtii aniguna runtii ma jawaabo sababta ay ku tahay mar rabo inaan noqdo qof xildhibaan ku fadhiyo meel maanta dhinacnac iyo iska hadlayo oo iska cheap ah marka qofku inuu waxa fiican ogaado saldanada ku fadhiyo dadkana isaga aamuso runtii marka aniga xoog waxaan saaray runtii bulshada waan ku xirannahay culimadii dadkii wax garadkii oo ku dhex jirnaa dadku laakiin waa dareemi karaa bini aadanku weligeedba waa in lagu xagxagto waa wax normal ah qofku weligeed markuu wax yahay baa la xagxagtaa weligeed ma aragtid qof waxba ahayn oo laga doodayo la falanqeynayo marka waa wax iska natural horta ah qofka hadduu mar saldanad helay mise wax ku fadhiyo mise wax qabad leeyahay qof muuqdo uu yahay in lagu xagxagto oo lagu mashquulo waa wax iska jirta marka waxaan la yaabaa anigu ma runtii wax dhibana ma anigu waa iska qabsaday saa dhahaysay oo si qurux badan hadda soo maaha marka runtii wax dhibigo anigu ma aha laakiin bulshada waxa way muhiim ka runtii dadka bulshada nala socday way og yihiin wax qabadkeennii saatir runtii caawa dhan baa wadi karaa haddaan ka hadlo wax qabadyadii noo suurtagalay runtii not only xildhibaan ahaan bal lawyer ahaan also bal laakiin dadka waxaan ku baaqi lahaa walaalayaal soo baxa odaya qofkii su'aal ka qaba waxyaalayaasha uu nala soo xiriiri karaa runtii guddi dhan baan hadda haynaa bulshada runtii la hadlayay la xiriiriyay dadkana ay soo wactameeyeen laakiin yani dadku propaganda dagaal ah in tuuladii Soomaaliya joognaa ama lama sameyn karo marka Mareykan baan u joognaa annaguna de maanta waqti kuma lumin karno qof kasta oo ay tama iyo qof kasta oo nacnac isaga hadla in aan u jawaabno oo la aytano oo waa dhaqankeeda Soomaaliya oo istaagna anagu si jiidka ah qabyaalada ahayd marka Mareykan baa joognaa anagu qofkana Mareykan afkaar siyaasadeed ku dagaalami kara iyo wax qabadkiisa qof kastana choice buu leeyahay go'aankiisa inuu qaato qof uu codeeyo marka laakiin dadku runtii wax qabadkiina aad buu ballaaran yahay dadka wax leeyahay noo codeeya runtii aniga walaal badan kama qabno runtii sababta ay ku tahay bulsho badan baa nagu xiran runtii codkeena waa helinaa insha Allah Soomaalidan garab baa kaga baahnaa qof kasta Soomaaliya codeyn kara runtii la codeeya hadafka aan ka shaqeynaa walaalayaal xoogna saarina waxa weeye xaaladaha dadka ay tabayaan oo qodobkii markii hore weydiisay oo ahayd iskoolada waa Islamic schools in la dhiso Soomaaliya leeyihiin oo dhaqaale loo helo not only inaan ku bixin karno privately but also funds baa jira oo foundations iyo ururo ay ku bixin karaan garab ku siin karaan qodobka marka ugu muhiimsan baa bulshada xoog la saaro laakiin si annagii inaan isku mashquulno oo ay iyo nacnac iyo qashin inaan tuuladii joogno amal oo kale I think waa nasiib darro runtii sababta ay ku tahay annagii magac iska direynaa aniguna waxyaalayaashan ku fiicana waxa anigu ma hadlo hal qof ajnabi xitaa runtii oo ka warhaya ma jiro xaaladaha dhacaya sababta ay ku tahay markas la weydiiyay waxaan dhahaa Soomaalida waa mid wada walaala wada jecel marka runtii waan dejinay xaalada uma jawaabayn dadka yani sharaf muhiim laha laakiin way iska cadahay bulshada community degan inay u jeedaan group oo runtii ay iyo aflagaado waa groupkii laftigoodiina watay gabar yar cadaana kale la dhaho 2018 ka runtii la shaqeynay gabar la dhaho Bernadine Kennedy Kent marka runtii walaalayaal yani runtii isku shaqay fiican tahay annagu Mareykan baa joognaa qabyaalad iyo waxaan meel lagu magaarayo mar horna isku dayay qabyaalad meel lagu magaarin qabyaalad meel lagu gaaray ma jiro annagu Soomaaliya dadkeena waa u shaqeynaa maalin kasta u shaqeynaa looyarnimadana oo isticmaalayna xildhibaanimo u shaqeynaa qofka xildhibaan waa noqon karaa siyaasad qofka qaban karaa macna badan kuma fadhido cilmiga looyarnimada yani ma aha inay ka cilmi badan tahay dhakhtar ka fiican tahay laakiin waa takhasus cilmiya qaabilsan baahida bulshada wuxuu noo fududeynaya bulshada waxyaalaha badan uga xalino waa looyarnimada hadda maanta anigu xildhibaan bas ahaan lahaa wax qabadkay ziir noqon lahaa runtii wax aad yar baa u qaban lahaa laakiin haddeer waxa ay caawinaya furfurnaannimada iyo connectionada iyo dhaqaalaha soo dhicinay
runtii lama soo koobi karo bulshada waxaan u qabana si joogta marka runtii waan ku codsanaya mar labaad inay codayaan soo baxaan codna siiyaan runtii kalsooni badan baan ku qabnaa inaan soo baxno وهاجاك داود يال سيدا مقلي سامبا هدي أدونيسو إسكولات إسلامي إن شقوين كسي بدن إن إسماعيل وكو قبطو سيدا وكا عد سنايو إن مركلة وعديسين أو أصو بحضو وعد كاقي عد كبيريسو أيو كا عد سنايا حلبانكا هل كان نواشاعية تي في وحانا شرفنا أهيد إن هل كان كوريسانو حلبان إسماعيل محمد أنيقو عبد سلانا وحنا دين كتاقيا سيدا يو نبت قليو